مواطنين قدرين تقاكا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن رئيس الوزراء ما أنت وأركتي قوله شعبي سفي عم يكون باقي لكن waxaan sugaynay in sida aan kugu beegnay caaw noogu beegto baastada caaw farmaajo ma lahayn hadii ku faatiix laga tagay noo sheeg aan ku sheegay walaalayaal sida la yiri maadaama farmaajo ay leen baastada waxa ku soo gaabina laakiin waxaan rabaa in arrin yar oo ahamiyadeeda leh inaan fursadan kaga faa'iideysto xilalka guddoonka baarlamaanka ama guddoonka golaha shacabka gudoomiyaha waajibaadkiisa waxa ka mid ah inuu u dhaqmo si dhaxdhaxaadnimadaas waxay keenaysaa in badan waxyaabaha qaarkood muusan ka hadli karin ayaamahan aad baa waxaa looga hadlayay miidiyada iyo isgaarsiinta bulshada iyo shabakadaha qaarkood mashaakil iyo waxyaabo aan waxba ka jirin ayaa intaas socotay mana hadli karo waayo haddii aan hadlo برلمانكay saameynaysa marka weligay intii hadda aan guddoonso 4 sano oo soo dhamaatay laba wareysi ma bixiyo wareysi waayo dhinac hadduu hadlo waxaa laga soo saari karaa inuu dhinac u janjeersaday marka dhexdhexaadnimadii dhumaysa waxaa jira shabakado oo maarta been iyo mashaakil iyo wax aan jirin iyo khuraafaad ku hadlayo oo dadka marin habaabiyo waxay ilowsan yihiin in mikrofoonka ay haystaan iyo qaranka ay wax ku qorayaan in amaano u yahay dadka waxaan uga digayaa walaalayaal shacbiga hadhuminina golaha shacabku uu shaqaysanaya hawshiisa waa qabsanaa xaga soo jeedinuu keenayaa waa toosin waa meeshii dalka laga hagaajiyay xukuumaddana waa adimaheeda marka taa waxaan jeclahay mararka qaarkood maadaama guddoonku uusan hadli karin haddii golihii shacbiga waxyaabo gardara lagu sheegaya dhagaysanina toosiya aad baan waxaan ugu ammaanayaa xildhibaano badan oo joogay oo rabay inay ka hadlaan aan ka joojiyaan idin ka hadlina oo haddii kale waxay noqonaysaa yoyoytan iyo reer mas-uuliyadda soo baxaysaa sida maarata iiga qaateen inaysan hadlin aad baan ugu ammaanayaa hase yeeshee mararka qaarkood waxay u baahantay dadka qaarkood in si asturan oo tartiib ah in loo toosiyo waayo waxaasoo dhan shacbi baa dharkiisa ay ku dhacaysaa waxaa hoggaanka naga xumaanaya haddii aan hadlaynin aan shubaanahay isbaaru dhigtaa liir isbaar inta ka dhigtaan isin uma lihiin qaar xildhibaana ii yimid oo yidhahdeen oday isbaar maa tahay waxaan ku yidhi adigu ma xasan khayr maad akhyaarka tahay ergamu ku soo dhigtay maya hadda iska dhaafada warkaas marka arrimaha noocaas oo kale inkastoo ay kabtan iga tahay laakiin waa arrin muhiim ah inaan ogaano oo aan ka digtoonaano mustaqbalka dadka soo noocaas u dhaqmayaan in la yidhaahdo waxaas raqiiska bisaal siyaasadeed buu gaaray shacbigeena bisaal siyaasadeed buu gaaray baarlamaankeena marka wax ay naga tarayso male annaka taas masala waxaan idhaahnaa aynoogii ay tameen washo oftayna marka waxay yidhaahdaan sheegaan laakiin waa saliim maanta waxaa war xumoo laguwaa waxaa yiri golaha shacabka 224 markuu ku ansixiyey waxaa war xumoo laguwaa marka nimankii hadda tororobka sheegayay maxay sheegayaan waxaani been lugtoolay lata been hal lugay leedahay markii way ku fee shalay saa lahaayeen maanta saana soo baxday marka beri maxay ku hadlayaan marka waxaa fiican in marta aan sharax qabanno aad iyo aad baa caawiya waxaa lihi warkii hala gaabsho wasiirada waxaan ka codsanayaa inay u diyaargaroobaan shaqooyinkooda ha qabsadaan annagana usbuuca dambe xildhibaanada waxaan bilaabaynaa dhismihii annaga gudaheena guddiyadii oo 15 guddi aan dhisayna haddii aan yidhaahdo mar alla markii guddiyada ay dhismaanna waxaa bilaabanaya is-aragga wasiirada iyo guddiyada oo midba kiis ku beegan ayaan bilaabi doonaa 26 abriil haddii aan yidhaahdo baarlamaanka kalfadhigan wuu xirmayaa oo waxaanu aadaynaa gurmadkii abaaraha iyo deegaan doorashooyinkii inaan ka war doono guddoonkana wuxuu galayaa diyaarintii kalfadhiga labaad inuu dejiyo ajendahoodii iyo haddii aan ku rogay arrimaha iyo istaraatiijiyada loo baahnaa wasiirada markaa
waxaan is-araggeena u badnaan doonaa markii uu noo bilaabo kalfadhiga labaad ayuu u badnaan doonaa laakiin intaas kalfadhiga koowaad oo dhan barlamaan kastaba wuxuu sameeya waa dhisidda maaragta hay-adaha dowladda ayuu dhisaa madaxweyne waa la soo doortay xukuumad waa la dhisay ilaa aakhiri guddoomiyaala la doortay ilaa aakhiri hadda waxaa noo haray kii annagana saamaynaysay oo ahayd oo annaga lagu saabsanay gudaha inaan sisno guddiyadii 15 baarlamaanka inaan dhisno iyo arrimaha kale la xidhiidha waxaan rabaa inaan hadalkay ku soo gonaanido aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan guddoomiye u ahay golahan shacbiga oo asluubtii uu maanta wax ku waday sida madaxweyne u soo doortay sida biseylka u soo socday inaan guddoonkiisa hayo aad